daawashada mobilada ama kombiyuuteraadka ay ilmuhu ku mashquulaan ama daawadaan waqti badan weliba gaar ahaan waxaa la yidhahdaa haddii ay ka bataan muddo gaaraysa maalintii 3 saac iyo wixii ka badan waxay ilmahaasi ku keeni kartaa aragti yari ka dhalata cudur aan badanaa u naqaano myopia cudurkaas waxa ugu badan oo hadda aan ku aragnay waa ilmaha ay ku badan tahay isticmaalka aragtida dhow oo cunugu 3 saac ka badan maalintii ku isticmaalo midda labaadna waxay dhalisaa maadaama cunugu uu mobile ku mashquulsan yahay waqti badan in cunugu uusan activity ama shaqo banaanka oo uusan wax badan soo qaban taasna waxaa ka dhalanaysa joogitaanka guriga gudaha uu joogo inuu ka dhasho cudurka aan ka hadlayna ee ah myopia